6 bilood ayaa laga joogaa markii maxkamadda cadaaladda adduunka xukuntay dacwadii badda ee u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya. Go'aankaasi oo inta badan aagga lagu muransan yahay u xukumay Soomaaliya. Aaggaasi oo ka tirsan Badweynta Hindiya ayaa la rumaysan yahay inuu leeyahay shidaal iyo gaas, sidoo kalena waxa uu qani ku yahay noocyada kala duwan ee noolaha badda. Kenya ayaa diiday inay u hoggaansato go'aanka maxkamadda, iyadoo kalluumaysatada gaar ahaan kuwa Lamu ay weli ka kalluumaysanayaan qaybta loo xukumay Soomaaliya. Abuukar Thailand, oo ka mid ah kalluumaysatada Lamu muddo 30 sano ah ku jiray howlahaasi, ayaa subax kasta u shaqo tago biyaha lagu muransan yahay, gaar ahaan qaybta loo xukumay Soomaaliya. Wuxuuna ka mid yahay tiro kalluumaysato ah ee reer Lamu oo wacd ku maray in aysan aqbali doonin go'aanka maxkamadda, halka qaar kale ay ka baqeen tallaabada noocaasi ah. 70% kalluunka lagu iibiyo jasiiradda Lamu ayaa laga keenaa aagga labada waddan isku haystaan ee Badweynta Hindiya, waxaana laga helaa noocyada ugu qaalisan kalluunka, gaar ahaan aargoosatada. Maxamed Muxudiin Abuukar, Maxamed Toxab, Johar TV.